gobolka Carta waxaa ka diiwaan gashanaa inay codeeyeen 8,906 qof waxaa codeeyay 4,460 boqolkiiba 50.8 ayaa ka soo qayb galay waxay codadkoodii xumaadeen 142 qof waxay hagaageen 4,318 qof EMB waxa ay heshay 3,465 oo u dhiganta 80.25 boqolkiiba halka EDG ay heshay 813 cod oo u dhiganta 19.57 boqolkiiba. gobolka Cali waxaa ka diiwaan gashanaa inay codeeyeen 13,447 qof waxaa codeeyay 10,119 qof boqolkiiba 75.25 ayaa ka soo qayb galay waxaa xumaadeen codadkoodii 182 cod waxa ay hagaageen 9,930 cod EMB waxay heshay 9,930 cod oo u dhiganta boqolkiiba 100. gobolka Dakhil waxaa ka diiwaan gashanaa inay codeeyeen 19,185 qof waxaa codeeyay 13,227 qof oo u dhiganta 69.18 ayaa ka soo qayb galay waxay codadkoodii xumaadeen 207 waxa ay hagaageen 13,560 EMB waxay heshay 11,766 cod oo u dhiganta 90.6 boqolkiiba halka EDG ay heshay 1,085 cod oo u dhiganta boqolkiiba 8 halka wanaag ay heshay 214 cod oo u dhiganta 1 boqolkiiba. gobolka Obok waxaa ka soo qayb galay inay codeeyaan 9,698 qof waxaa codeeyay 8,464 qof boqolkiiba 7.8 ayaa waxay codadkoodii xumaadeen 225 qof waxay hagaageen 8,209 qof EMB waxay heshay 8,209 qof oo u dhiganta boqolkiiba 100. gobolka Tajora waxaa ka diiwaan gashanaa inay codeeyaan 15,000 qof 660 qof waxaa codadkoodu ay hagaageen 15,490 qof boqolkiiba 93.93 ayay u dhigantaa dadka ka soo qayb galay waxay codadkoodu xumaadeen 108 qof waxaana ay hagaageen 15,328 qof EMB waxay heshay 14,676 cod oo u dhiganta 95.41 boqolkiiba halka SC 17 ay heshay 706 cod oo u dhiganta 4.9 boqolkiiba. inta aan ka bixin marka hore waxaan u mahad celinayaa musharaxiinta ka soo qayb qaatay doorashada heerka degmo iyo heerka gobol oo mas'uuliyiinta muujiyay iyo xilkasnimo muujiyay intii ololaha uu socday sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dadkii ka shaqeeyay doorashada isla markaana ku hawlanaa inay si wanaagsan ay ku soo dhamaato jamhuuriyadda Jabuuti ha noolaato shacabka Jabuuti ha noolaadaan.